Bismillah, alxamdulilah. Dhammaan saaxiibada qiimaha badan ee halkan igala socda guud ahaan waa idin soo dhoweynayaa saaxiibayaal. Waa walaalkiin Axmed Cabdikariim waaye arag oo idinkaga mahad celinaya runtii codsigii aad iga soo ajiibteen saaxiibayaal. Saaxiibayaal, sida aad la wada socotaan hadda kadib insha Allah waxaan ka wada socon doonaa insha Allah janalkan aad iga daawanaysaan ee waaye arag. Runtii waxaan jeclahay inaan muuqaalkan uga hadlo dhowr qodob. Ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa dhammaan asxaabtii i garab istaagtay. Walaalayaal, waxa waa qofka qiimahiis waxaa lagu ogaan karaa asxaabta uu haysto. Aadan idinkaga mahad celinaa runtii tiro walbo aad tihiin iyo kuwa dambe oo gadaal idinkaga soo biiri doona insha Allah. Saaxiibayaal, sidoo kale waxaan jeclaystay inaan ka hadlo maadaama kolley qof walba baraha bulshada siba uu isticmaalaa. Aniga sida aad wada aragteen inta badan waxaan soo geliyaa sheekooyinka qisooyinka waxtarka u leh bulshada. Waxaa laga yaabaa inaad aragteen dad kale oo qaab kale u isticmaala baraha bulshada, laakiin runtii waxaan jeclaystay inaan waqtigiina idinkaga faa'iideeyo runtii mar walba. Waxaa laga yaabaa saaxiibayaal inay jiraan asxaab kale oo xoog iyo xoolaba ku bixiyay in ay waxyaabo oo aan munaasab ahayn soo gudbiyaan janalkan. Runtii ma jeclaysan doono mana ka daawo doontaan insha Allah waxyaabo oo aan munaasab ahayn, waxyaabo aan dhaqan iyo diinba aan ku wanaagsaneyn. Runtii qorshayaal badana inoo soo socda ma raba inaan ka hordhaco. Waxaan u mahad celinayaa runtii anigoo ka faa'iideysanaya jaaniskan dhammaan asxaabtii ila soo shaqaysay janaaladii hore iyo meel walbaba iga soo caawiyay runtii. Dhammaantoodna runtii meel bay igu leesgaraysan yihiin oo niyadeyda kama baxaan mar walba. Qofka bini aadankana waxa waaye waa in uu abaal waxaa la dhahay abaal qof galaa badan laakiin qof gudaa yar runtii. Anigana marka qof walba oo in yar iga caawiya hataa ma ilooba runtii. Saaxiibayaal, sida aad la wada socotaan marar badanna waa liisoo weydiiyey janaalkeygii hore ama janaaladeenii hore waxay ku dhacay. Runtii marar badana cilado ku imaadeen janaaladii hore. Waxyaabo badanoo waxaa lagu qabsaday copyright sida aad u wada taqaanaan YouTube-ka markii la wada joogo. Marka ugu dambeyn waxaan go'aansaday intii aan khasaari lahayn waqtiga oo aan wax aan faa'iidana nafteenana u lahayn, asxaab badan oo ila shaqaynaysana markaasna aan waqtigooda anigoo u beeqaaminaya. Waxaan go'aansaday inaan muddo hakiyo oo wax nadiifa oo macquula iyo barnaamijyaad oo munaasaba barnaamijyaad waxtar leh inaan soo gelin insha Allah iyo qaab ka duwan sidoo hore. Marka walaalayaal, runtii waxa waaye waxaan kaloo idinka codsanaa mar walbo inaa garab istaaga hadda noo muujiseen mid kasii kasii xoog badan inaa noo muujisaan oo asxaabtiina kalena aad gaarsiisaan runtii janalkan una sheegtaan insha Allah inaa waxyaabo badan ka daawo doontaan sida sheekooyin dhacay oo laga yaabo in naftaada wax badan u faa'iideyso marka iyo qisas hore u dhacay ayagana sidoo kale oo insha Allah aan rajeynayo inaad ku cibro qaadan doontaan ama waxyaabo badan ka kororsan doontaan insha Allah. Sidoo kale aad ka heli doontaan halkan sheekooyinka jaceylka iyo barnaamijyaad xiiso la runtii qisas dad ku dhacay oo adinkaba aan qaarkiin haddii aad iisoo gudbitaan hataa insha Allah waan isla eegaynaa. Qofkii markaa qisadiisa la gudbi karo bulshada loo gudbi karana waa u gudbinaynaa insha Allah. Saaxiibayaal, waxaa kaloo idinka codsanaya saaxiibayaal in aad inaad horta soo duubtaan muuqaalo insha Allah anigoo idin tixgelinaya runtii. Waqti ayaan idin sii doonaa. Qof walba waxaan ka codsanaya inuu muuqaal iska soo duubo. Waa dadka awooda runtii inta awooda waaye qof walba inuu muuqaal soo duubo uga hadlaa horta kow magaciisa, halka uu joogo, aqoonta ka Axmed Cabdikariim ahaan aqoonta uu leeyahay, goorta uu barnaamijyaadkeyga uu bilaabay inuu daawado ama dhageysto, iyo waxyaabaha fikradaha aad jeceshiin runtii inaad aad soo gudbisataan oo janalkan fikradaha aad isleedihiin waa waa fiicnaa lahayd waxaas in lagu soo daro. Annagana waqtigeenana waxaan isku dayaynaa runtii inaan gelino
dhammaanteen maaragtay keen annagoo soo samaynayna iyo adinkoo maaragtay daawadayaasha ah ama adinkoo laydiin soo gudbinaya waxaan rajaynaynaa insha allah inaan kala faa'iidaysano oo wax micno leh oo macquula inaan maaragtay dhagaheena iyo indhaheennaba ay kusoo dhacaan. marka saaxiibayaal balanteena waxa waa inaan kala faa'iidaysano. runtii marka aad wanaag ka shaqaynaysid qiimihiis waxaa fahmi kartaa maaragtay marka aad adigana wax badan ka kororsatay, falcelinta dadweynaha aad aragtay, saameynta ay adig kugu yeelatay markaad arkaysid. runtii maaragtay lagama sheekey karno runtii hadda ka horna saa'id ugama hadlin, laakiin dariiqan waa dariiqa aniga doortay in aan wax munaasaba oo suuban oo wanaagsan inaan sameyn karo. runtii haddana waa soo waday 2 sano iyo go ayaan soo waday runtii waxyaabo aan maaragtay kulligood waxyaabo nadiif ah. waxay dhahaan kasoo qaad qofka cabitaan markii la siinayo kale, cabitaan seeka ah qofkaas la siiyey markii laho, mise cabitaan biyo lagu soo daro kale, markii way kala fiican tahay. dadkii waxa waa caanaha iibin jira yaqaano ama caanaha gada jiray, marka caano oo maaragtay markaas xoolaha laga soo lisay lagu keeno iyo markii caano maaragtay biyo lagu soo daro markii lagu keeno way kala fiican tahay. marka mar walba waxaan iska ilaaliyaa runtii ama asxaabta ila shaqaysana aan mar walba ku bogaadiyaa ama ku booriyaa in aan maaragtay horta ka shaqeyno wanaaga. maaragtay wax inta aan soo qaadan lahayn maanta dhan wax bilaa micno dara intaan soo qaadan lahayn inaan soo qaadan kaliya wax yar oo wanaagsan runtii oo dadkana wax badan u faa'iideynaya. marka anigana maaragtay waxyaabaha oo inta badan igu dhiirigeliya inaan hore usii socdo waxaa ka mid a asxaabta qiimaha badan oo adinkaba ka mid tihiin runtii, anigoo mar walba aad idinkaga mahadcelinaya runtii. waayo qofka markuu dhalinyar yahay ma yaqaana meesha uu kusii socdo hadduusan haysan talo. maaragtay 20 jir waxaa la yiraahdaa intuu bood ka bood ayuu talo ka boodaa. laakiin marka aad haysatid dad qiimo badan oo asxaabo, waalid, walaalo, asxaab oo mar walba kula talinayo, kugu dhiirigelinaya wadada wanaagsan aad dooratay, hore usii dhaqaaqaysaa. runtii anigana aad idinkaga mahadcelinaa. hawshan aan wada aniga uma wado in aan lacag ku sameeyo, inaan bilad ku helo, horena uma dhicin inaan TV inta soo hor istaago ama magac ku raadiyo. laakiin hawshan waxaa u doortay inaan kala faa'iidaysano runtii, aan wax wanaagsan kala qaadano. runtiina maaragtay waxaan halkan u joognaa inaan kala faa'iidaysano saaxiibayaal. dhammaantiin runtii aad idinkaga mahadcelinaya waqtigiina qiimaha badan ay geliseen, waqtigii qiimaha badan iyo sida aad maaragtay ii garab istaagteen, aad ii muujiseen. allah idin sharfo. mar walba waan isla joognaa insha allah. wax badan aan kala faa'iidaysan doonaa, muuqaalo badan oo waxtar lahaan soo sameyn doonaa insha allah saaxiibayaal. asxaabta kale kusoo xira insha allah. aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaya. balanteena waxay tahay hadda kadib YouTube channelkan ayaan ka wada socon doonaa, waayo arag channel insha allah saaxiibayaal. soo dhawaada si qalbi furan, malaa'iga ha idin sharafto. aad u mahadsantihiin. mar walbana allah idinku xafido. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.